mararka qaarkood markaan waqtiyada soo xasuusto waan iska ilmeeyaa haddana waan farxaayo waxaan ku farxaa macnaa alxamdulillaah mirihi in ay macnaa meel weyn ay gaareen gabdho badan xijaabka ay qaateen mar waxaa jirtay 80meeyadii 70meeyadii 60meeyadii haba sheegi bi 50meeyadii gabadh xijaaban ay ahayd qof mujtamaca uu la diriray dawladdu ay la dirirtay guriga ay ku nooleed lagala dagaalamay ehelkeedii ay la dagaalameen oo ayada dhanba ay noqotay macnaa qof kaligeed ah hadda wax kale ma wadato waxaa laga yaabaa xataa juscama inaysan dhamaynin xijaabka maanta quruxda badan la wadatana ma ay wadato garbasaar yar ay isku duubtay iyo xoogaa yar xishood ka muuqda ayaa dagaal waxa loogu qaaday ama dawlad ha ahaato ama dad kale ha ahaadaan dagaal xoog la lagu qaaday marka imagine hadoo gurigaadii colkaaga kaco dariiqi markaa socoto dadka col ay ku leeyihiin iskuul hadaa dhiganaysay macallimiintii iyo maamulihii ay col ku leeyihiin wax kalena aadan sidanin hal mar yar aad wadato oo ku baxsan laadahay adigu bal maanta suurayso oo macnaa fiiri gabdhihii hore waxay gabdhahan uga duwanaayeen ma dhihi kara laakiin gabdhahaas waxaan ku aqiinay ama aan ku ogaa waxay ahayd kow kalsoonida ilaahay ayaa aad ugu badnayd ilaahay isu dhiibeen oo waxay macnaa hadda wax kale lama baran jirno maxaa la yaqaan axaadiistan waxaan ka naqiinay ay ka yaqiineen 40 nawaawi tii meel dheer gaarta ilaahu ay riyaadu saalixiin ka barato tafsiirkan waxa laga yaabaaba inaysan dhamaynin qiraa'ada inay jajabidayso maanta tan maanta waxay uga duwantaa waxay tahay ummahaata sita ayay taqaanaa axkaamtii ay baratay tafsiirkii ay baratay دراسات إسلامية أما ماجستير كهيستا أما دكتوراه كهيستا أستاذة في الجامعة أيتها دراسات إسلامية دقيسا لكن تاس وقت أي كبرته سيدي صلاة دي أصح الله هيد أيا دبكو أهيد صلاة دي سي أصحته أيا دبكو أهيد إلا معناه دبكا أي صامرته وحكمت أها إن لو حير جري مرض يرتاع اسكو دوبته xabsiyada ay u galeen gabadhii ugu horeysay xabsiga gashay waxa la dhihi jiray Maryan Xaaji Cabdiraxmaan Allah yarxamaha waa dhimat waxa ku xigtay Khadiija ay habareer u ahayd Zahra gabar la dhaho adu gabdho badan kadib gabdhahaas markii la soo deeyay kadib hadana gabdho kale la xiro jaamacad kolay kitaabkan maxay tahay urduux qofkii akhriyay ayaa akhriyay ama maqaaladiisa dhageystay gabdho badan ayaa waxa laga eriyay jaamacadda la foole qaarna waa la xiray afara la xiray inta kalena waa laga eriyay maxaa lagu eriyay waxa lagu eriyay marada yarta ay wataan hada xijaab quman ma wataana ogow gabdhahaas markay ka soo baxeen 80meeyadii xabsiga ka soo baxeen ayagana markaas waxa la bilaabay marada isku laaban in la qaato od maanta haddaad aragto gabar marada isku laaban leedahay alla xijaabkeeda waa qafiif aad maanta leedahay qaarkood waxay ka soo carareen dhibki iyo tacdiibkii lagu hayo ama toojarkii waxay u soo carareen meeshaan la yiraahdo Kenya runtii waxay ahaataba dhibkii la xaga ma oolin walaalo wanaagsanna waan ugu nimid walaalihii loogu yimid waxa kamid ahaa ilaahay khayr Allah siiyo anigu gabdhaha bisaan ka hadlaayay gurigii Ibrahim gurigii Sheekh Aadan Garweyne Allah yarxamahu iyo walaasheen Faaduma Saciid Faaduma Dawlaay ilaahay khayr Allah siiyo gabdho badan oo hadda aan magacyadooda soo koobi kar Aamina Saalim gabdho aad u tiro badan waxa loo yaqiinay salaamu calaykum magac loo bixin jiray waxay ahayd waayo meel kasta ay maraan is arkaan
xadiidkii ahay salaanta hala faafiyo ay aad u qaateen meel kasta isku arkaan assalaamu calaykum is dhihi jireen marka waxaa lagu dhajiyey assalaamu calaykum rag badanaa soo qaxay oo inta yimid gabdho badanna waa soo raaceen laakiin qodobada ay waagaas lagu horumaray ama ilaahayna ugu gargaaray waxay ahayd kow ikhlaas aan xad lahayn ogow ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkiisa asaga ayaa kaafiya ilaahay addoonkiisa kii tala saarto asaga ayaa maxay ahayto wakiil u ah xasbiya allah wa nicma alwakiil markay dhahaan dhab ayay ka aheedoo xaraf ayay macnaa ilaahay uga filaayeen lianna ciirsi kale ma lahayn walaal u hiiliya ma laha aabbo u hiiliya mala gabadha nin u hiiliyana ma laha guryihii cariiri badanay ku qabeen ogow ayadoo saasa ee intay macnaa sabarto bannaanka markay u baxdana la dhibi jiray laba gabdhoodoo saaxiibbaa israacay maalin ayagoo jidka socda ayaa mid labadoodiiba waxaa lagu soo shubay biyo baastoo kulul tii kale ilaahay amarkiisa ilaahay waa ka badbaadiya laakiin tii darbiga xigtay ee iridii looga soo daadinayo xigtay ayuu macnaa aad hadda waa biyo baastoo kulul idiin sheegi maayo macnaa qof jirkeeda lagu shubay biyo kulul hurka ay qaadayso aaday u calool xumaatay tii kaloo sabar siinaysaa intay garabka ka gadhaxday tiri kama ficdid aala yaasir ee sabar macnaa cilmiga la haysto hadday u badato siiradana wax badan xiran ayay ka barteen gabdhahaas marka kow waa ikhlaaska iyo kalsoonida ilaahay ay ku qabeen naftoodana kalsooni ay ku qabeenoo waxay qabeen hadday tan ku dhintaan in ilaahay ka ajirsiin doono in ilaahay ka ajirsiin doono waxaa kaleento intaa u dheereedna waxay ahayd isjacaylka isjecel yihiin waagaas dadkaas waxaa laga yaabaa hadda markhaati waxaa la yidhi dadku beenlow wuxuu markhaati u qabtaa nin dhintay iyo nin meel dheer jooga soo ma maanta waad heli kartiin hooyo faadimo saciid way joogtaa waa nooshahay ilaahay cimri dheer iyo cibaado badan iyo caafimaad allaha siiyo faadimo maxamed aar waa nooshahay waad weydiin kartiin waxaa kaloo idinla joogto masaajidka sigiska hadda aad ka helaysiinoo qisooyinka iyadoo si tafatiran u haysa maama cadar walaashay cadar kheyr allaha siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaalana faadimo cawke dadkii waa weynaayo dhan alxamdulilah reer nooreebo waxaa reer xamar reer maxay tahay Soomaaliya uga fiicnaan waxay ahaayeen dad xoogaad da'weyn ayaa macnaa islaamkii fahmay laakiin ama ha ahaato koonfur ama ha ahaato waqooyi dadka dhalinyarada oo iskoolada dhigta ayaa diinta markaas fahamsanaa way yaraayeen aadna waxaa u yaraa gabar adigu xataa 30 gaaraysa lama helaynin dad yar yar oo iskoolada dhigtay u badnaayeen maxabadii xataa waxay keentay waqooyi koonfur ha joogto meel kale ha joogto gabadhu markay aragto gabar macnaa maradaas wadato ay ku tuhunto inay macnaa xoogaa dadkaas ay ka mid tahay way u soo ordaysaa jidkii hag intay siiso dama taqaano ayay dhahaysaa ilaahay dartiis ayaan kugu jecelahay taana waxaa laga barto waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam markii asxaabtii ay u soo haajireen madiina ansaar nabiga calayhi salaatu wasalaam dowladdii kow oo dhisay waxay ahayd ma ahayn dowladda dhisay ma ahayn macnaa askar ma dhisin military ma dhisin strategic ma dhisin wuxuu sameeyey walaaltinimo ka dhaxaysa muhaajiriintii iyo ansaartii taa ayagoo ku dayanayana walaaltinimadii iyo maxabadii ilaa hadda dad aad isu jecel ayaa jira adinkana waxaan idin kula dardaarmayaa inaad maxabadaas soo celisiin aysan dhicin macnaa xataa haddii qofka kale khalad ka dhaco waxaa aad loo macnaa la isugula dardaarmi jiray walaasha ama walaalkaa 70 cudurdaar u samee
maantana waxa laga yaabaa in shaydaan noo sheekeeyo gabadhii zamankaas jirtay waxay ahayd mid ku qaanica wax alla wixii ka hor yimaada lianna horteeda waxaa ka dhici jiray in lagu dilo ama kow laga siiyo caalim ay taqaano waa 10 tobankii hortooda lagu soo dilay tobankii macnaa tiri bes oo diideen xeerka qoyska masaajidda saas u badan ma jirin dumarka hal masaajid ay lahaayeen xaawataako meel la dhaho ku yaala ay isugu tagi jireen mararka qaarkood waxaan isweydiiyaa hadda macnaa waxa laga yaabaa maxaa lagula dagaalami jiray laana ayaga waqtigaas mawlid kama aysan hadli jirin aqoonta kale kama aysan hadli jirin gabdhahaas iyo wiilashaas waxay ahayd wardiinta islaamka loo soo noqdo wardiinta islaamka yaa laga tagin wardiinta islaamka macnaa dastuur ha noo noqoto markaas dacwo sirriya waxa la yiraahdaa jirtay oo tartiib la isugu sheegayo iskoolkii marka aad joogtid group aad wadaysa ilaahay ka cabso quraanka baro salaada duko quraanka xifdi waxaan ahayn la isba farjirin dhibka marka xaguu ka yimid marka shaydaanka marka wuxuu diidayaa waxaad ogaanaysaa ama munaafiq ha ahaado ama gaal ha ahaadee nuurka ilaahay inuu damiyo rabaa nuurka ilaahay inuu damiyo rabaa ama cilmi badan lahaw ama ha lahaanin ama xijaab weyn xiro ama xijaab yar xiro mar walba dagaal uu kugu hayaa saa isaga dhicin lahayd waa adiga nimcada maanta aad haysato ma aysan haysanin gabdhahaas qodobka saddexaad ay haysteen waxay ahayd inay ayaga wax isu quuraan haddii maanta reerka gabadhan ay reebaan ay yiraahdaan dugsiga ma tagaysid wax soo baran maysid tan kala u soo qaadayso guriga ugu imaanaysaa meeshaas ay ugu meerinaysaa waxaa laga yaabaa kitaabka inaysan haysanin waqtigan hadda qalina la haystaa oo xataa tafsiirka ku jiro waxa la haystaa kitaabadii la haystaa waxa laga yaabaa inuu macnaa xaafadan ama meel dhan uu yaalo hal kitaabkaas la kala guurinaya oo qof walba gacanta ku qoraya bal arag adigu rafaadkaas maxaa uga duwanta hadaa israahad ayadu islaam ahayd anna islaam aha saxiix laakiin facility-ga maanta aad hayso iyo macnaa sahlanaanta adiga aad haysato ma aysan haysanin iskoolada markay tagaan looma ogolo xataa inay timaha Soomaalidu ceeb ahayd inay gabadha timaha qaawiso khaasatan markay guursato iskoolka markaa tagta hal lagu qabo yaa lagu qabin shaqadooda ma ahan tii loo naxariistaa waxaa la dhihi jiray ilyar qofkii yaqaana ama dango qofkii yaqaano oo timaha looga jeedo loo ogolaa iyo shaar gacmo gaaba iyo surwaal imagine marka gabar surwaal wadato intaa laguma daynine galaas walbaba markay gasho laba wiil dhaxdooda ay fariisanaysaa ama wiilkii laba gabdhood ayaa la dhex fariisinaya marxaladahaas ay wax ku soo barteen adna maanta maxaad haysataa iskuul gabdhaha u gaar ah bas gabdhihii u gaar ah dugsi gabdhihii u gaar ah gurigaaga oo kuu gaar ah hooyadaa oo kaa bixinayso nimcadaa ku jirtid arag marka xijaabka markaad hagaajiso meel aad marto maasha allah heblaayo habaryartaahoo kugu farxayso eedadaahoo kugu farxayso aabbaha oo kugu farxaayo ayadana waxay soo martay aabbaheedoo ka naxaaya xataa hadduu diinta yaqaan wuxuu ka naxaaya ayaa leeyahay ilaahay waa qafuur raxiim maanta ayaa lagu xirin oo lagu dilina xabsigaasaa laga wada baqaaya xabsiguna wax sahlan ma aha yaa lagu xirina maanta iska dhig xataa hadduu diinta yaqaano waa qallama ay ahayd aabba ku baraarujiya ama yiraahdo wargarbasaarkaas iska wax laga qaadi kara ma lehe wuu yaraa aabba dhaafay uu ahaa kan kaleentana ma fahamsana waxaan asaaba ama kula dagaalamaayo hooyadii kula dagaalamayso
habareertii waxay leedahay bismillaahir rahmaanir rahiim qoomkii diinta cusub keenay xaafadii markaa marta diin cusub aad keentay adiga dhan waxaad tahay qof faqooqan oo macnaa fadala camalka ah xaq application-ka Payc waa abaad ku dirsan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta qofka aad u diraysid waxay lacagtu ugu dhacaysaa telefoonkiisa haddaba ha moogaan application-ka Payc oo kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka